بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. example 2 marka wuxuu daba socdaa casharka hore usoo qaadana marka rules to find the bi bi si ku weerana particular integral kana sidee lagu helaa rulonka waxaan dhahnay r into x kaaga ama yani equation kaaga hadii uu non homogeneous hadii uu noqdo oo qiimaha hadii uu yeesho booskan 0 ku naqaan hadii qiimo nagu yeelo oo value lagu siiyo sidee particular integral ka ku heli kartaa marka particular integral kaaga marka r x kaaga hadii uu diyaarsan yahay qaab ah e power alpha into x plus beta هذا مثلا كانوا كل محدود يارسنا e باور alpha okay alpha into x alpha ده وحي 2 ما alpha into x y marka بلاش beta ده أنا كم مقال مانت so marka هدي وقاب كأودي يارسنا marka محاسبنا إني وحنقول إنه 1 divided by يعني f function of d اللي وسيء وكل عشان e باور alpha x plus beta استاب كل هذا نحو هاي d ده حنكون بدلنا alpha حنكون بدلنا marka alpha نسوي زيننا d حنكون بدلنا waxaa shardi ahayd marka alfada in 0 la mid noqonin sababtana waxay ahayd hooseeyaga 0 haduu noqdo infinity imaanaya marka example kan labaad inta aan sameeyna marka anigu kaas qaadanayno ugu horeyn aan u diyaarino qaabka ahay symbolic form d square plus d minus 6 whole into y waxay kula mid tahay 0 kula mid oh man 0 ma waxay kula mid tahay 5 e power minus 3 x ay kula mid tahay maanta halka marka taagana marka scientific galina marka intaan civic galin korta aan diyaarin auxiliary form ahaan u diyaarino kan symbolic form ahaan waa macnaha auxiliary form waxaan noqonaa marka d square plus d minus 6 waxay kula mid tahay 5 e power minus 3x intaan u kaliya civic galin adiga marka sidee civic loo galiyaa marka waxaan leenahay mod dan waxaan dooranayna 5 dan waxaan leenahay 3 marka waxaan leenahay 1 minus 6 civic sida loo galina hore u soo barnay 2 iyo minus 3 inoo soo baxday marka waxay inoo soo baxday 2 iyo minus 3 okay waa 1 minus 6 then solution 2 iyo minus 3 d marka waxay noo la mid tahay marka 2 minus 3 inoo soo baxday marka ugu hore marka complementary factor keen ahayn marka complementary factor hore u soo barnay muxuu ahay c1 e power 2x plus c2 e power minus 3x simple as simple as that. Then let's go for bi. Particular integral can ahel marka particular integral maxaa lagu helaa marka 1 divided by function of d. Function of d ay meeqa haysta marka haysta d square plus d minus 6 oo ku dhacsan 5 e power minus 3x. Step wuxuu ahay meel ba d ku arag maxaa ku diranayna minus 3 aan ku diranayna alpha ku diranayna alpha dana maanta maxaa la mid ah minus 3 aan la mid ku bedela marka waxaan leenahay 1 divided by minus 3 whole square plus minus 3 minus 6 oo ku dhacsan 5 bartan aan dhiganayna e power minus 3x halka aan geysanayna marka then waxaan leenahay marka 5 1 divided by yani case kan exceptional case una badana macna example kan exceptional case wax la yiraahdaa jiro oo yani some case hooseeyaga inuu 0 noqdo hadii hooseeyaga 0 noqdo maxaa sameeynaa macna barnayna dida yani marka 3 da isku ragna waxaan soo baxaya 9 plus minus 3 da ku dhifato waa minus 3 minus 6 e power minus 3x halka markay loo taagan tahay waxaan leenahay marka 1 divided by labada isku geeyay marka waxa soo baxaya 9 minus 9 e power minus 3x labada marka isla saar waxa soo baxaya 0 waxa soo baxda marka 5 e power minus 3x oo loo qeybiyo 0 qalad waa marka hooseeya 0 doo noqdo marka sidaan kale marka limaad marka waxa la marka rule valid and madam rule marka uu naga fail garow marka maxaa la sameeynaa marka hal step u dheeraad ku daray marka stepskaaga hore marka stepkaas dheeraadka waa maxay waxaa sameynay yani d-daada horta ugu horeyn waxaa ku sameynay differentiation xalaada ku sameynay d-daada waxaa ku sameynay differentiation with respect to d ugu sameynay ugu horeyn number 2 horgalahaaga waxaa ku dhufanay x ku dhufan doontaa 5 kan horgalaha ka dhigto waxaa ku dhufan doontaa x ku dhufan doontaa marka مثلا isku dayno kale inaan implement gareyno kala distaan waxaa leenahay ugu horeyn horta function kaaga differentiation ku sameey d-dan ma qaasana maanta waa d square plus d minus 6 aysan soo ma differentiation ku sameey marka hadii differentiation ku sameeyno with respect to d ugu sameeyno waxaan noqonay 2d plus 1 inagu soo baxaysa marka 2d plus 1 hooseeyo nagu dhig marka maanta marka 5 oo ku dhacsan x 1 divided by 2d plus 1 e power minus 3x alena marka okay waxaa sameeyna laba step oo kaliya ku soo darnay yani steps hore u naqaani waa maxay steps kan ku soo darnay ugu horeyn partial and differentiation ku sameey function ka lagu siiyay hadii aad differentiation ku sameyso with respect to d ugu sameyso kadibna horgalahaaga tirada yani ida la socota horedan ay keen jirtay x ku garaaco kaliya hadii hal mar ku sameyso x hal mar ku dhufo hadii uu marlada 0 soo saarto marka differentiation kala ku sameey x kala lagu garaac hadii marka la soo saarto saddexaad afraad ma tirada ku celcelinay macna adiga hadii aad aan ka shaqeynay 0 soo saarto maxaa sameynaa 2d plus 1 hadana waxa ku sameynaa differentiation ku sameynaa maxay noqon doontaa 2
okay 2 da hor kusoo garaaco kaliya 2 kaliya nugu bas kalkaatana 0 noqona 2 ya hoose ay ka dhiga doonaa marka 5 kan maxaa kusoo dhifan doonaa x kala dad kusoo dhifan doonaa marka laakiin inay u baahan doonaa rajayna step kan okay waxaan marka 5x 1 divide by 2 into alabada meel ugu dhimantaa marka -3 plus 1 e power -3x okay waxaan marka 5x oo loo qeybiyo marka labada dal isku dhifto waa -6 plus 1 leh waa -5 e power -3x okay labada isla saar marka halka waxa ka soo baxay marka -x e power -3x okay this is your solution for bi then let's get complete solution kan ah helna marka complete solution marka complete solution kaaga marka yc maxaa lagu heli jiray marka waxaa lagu heli jiray complementary factor kaaga oo lagu daray particular integral kaaga marka complementary factor ka marka meeqa soo helna marka waxaan soo helna c1 e power 2x plus c2 e power -3x inaan jeclaa okay we got like that value yeah qiimaha soo helna macnaha c1 e power 2x plus c2 e power -3x complementary factor keena waa particular integral keena meeqa helna asagana waxaa helay -x e power -3x waxaan asagana marka -x e power -3x okay so this is our complete solution keena waa kana anaga marka complete solution ka u socona dhan waa kana marka intaan u socono kaliya anaga marka okay then that is the end of rule 1 let's go for rule 2